xilligaaga ha maseerin maseerkana iska ilaalay maseerka waa tii ibliis ka soo saaray jannada maseerka inuu meel xun ku geeyo mohane meel fiican ma ku geenayo qofka sareeyo ha ku mashquulin ha fiirinin laakiin qofka hooseeyo ku mashquul fiiri waxa ogaanaysaa nicmada ilaahay ku siiyay darajada ilaahay ku siiyay heerka aad maraysid aad mar walba xasuusinaysaa marka gaajaysan tahay si aad rabbi u soo xasuustid marka dharagsan tahayna si aad alla aad ugu shukr celisid mar walba maskaxda waxa saartaa in aad rabbi ku shukrisid maseerkana iska yaray maseerkana qofkaas muxuu guri u haystaa qofkaas muxuu ilmo u haystaa qofkaas muxuu wiil u dhalay muxuu gabar u dhalay aniga maxaa sidaas aku mashquul maxaa yeelay qofkaas waxa loo siiyay dibkiisa iyo rafaadkiisa aday ma ogtid waa laga daboolay qofkaas hool kala haysta dib kala haysta wax kale ku mashquulsan yahay laakiin adiga wax yar haysta waa iska faraxsan tahay wax walba ilaaha kala asturay wax walba ilaaha kala ilaaliyay wax walba ilaahay darajadiisa iyo nidaamka ee systemka ilaahay u sameeyay ayuu ku socdaa adiga hadaa maseeraysid laba qof lagu ogol yahay inaad ka maseertid qof maal qabeen ah oo lacag badan haysto oo maalkiisa oo ku isticmaalayo shay wadada ilaahay qof maal qabeen ah oo lacagtaas u bixinayo midig bidix u bixinayo oo maalkiisa sadaqeysanayo ilaah dartiisa qofka soo dhigirta hada asiga kale ahaan lahaa wallahi siisu kala sameyn lahaa taas waa lagu ogol yahay waxa kale ka maseer kartaa qof cilmi diin haysto oo wadaad ah ama sheekh ah oo cilmi hayo cilmigaasna uu faafinayo hada waa dhigirta ninkaas ogoladan ahaan lahaa ama qoftaas ogoladan ahaan lahaa wallahi siday ayada khayrka ugu shaqeynayso anigana khayrka ugu shaqeynaya maseerka labaad shay waa lagu ogol yahay laakiin waxaan kale maxay guri dubay ugu dhistay maxay guri ugu dhistay maxalla Masar maxay guri ugu dhistay intaas ku mashquulin naftaada ku mashquul maseerkana jannadu ayuu ka reebayaa is ilaal insha Allah ta'ala